بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة channel كنا Somali Technology Solution هدو إلهي رضي إن شاء الله مانتا وحن كاهد لدونا كالي لينكس سيدا الله هبايو iyo kamaanada aan isticmaali doono inagoo isticmaali doona kamaana aad iyo aad basic ah casharkan kii ka sii horeeyay waxaan ku sameynay sida loo install gareeyo SSH saad uga jeedin meeshan kali links ayaa inoo yaala waxaan ku sameyn doonaa insha Allah haddii la raado remotely ayaan u geli doonaa kadibna waxaan isticmaali doonaa kamaano aad iyo aad muhiim ah la socod wanaagsan halkan saad u jeedin waxaan ku haystaa terminalkii computerkan isticmaalayna waxa weeye waa macbook so terminalkiisu sidan u egyahay marka waxaan rabaa inaynu tuso laba siyood ayaa loo galaa labada siyood ee loo galo waxaa ka mid ah mar waxaa loo galaa SSH ayaa lagu qoraa -l ayaad qoraysaa kadibna magaca userka ayaad gelinaysaa kadibna waxaad ku xujisiinaa IP addresska kali oo leeyahay 192.168.0.21 inta markaad tiraahdo wuxuu ku weydiinayaa passwordkii ayaad gelinaysaa meeshan passwordka markaad ku geshid marka ugu horeysa information ayaa ku soo baxaya wuxuu ku leeyahay the program including with a Kali Linux system are free software information kan ayaa ku soo baxaya welcome ka so saad u jeedin hadda waan ku jirnaa Kali Linux so waxaan kala oran karnaa clear exit ayaan oranaa si kale ayaan tusaya oo loo soo galo waan ka baxnay Kali Linux saad u jeedin meesha clear ayaan mar labaad ku qorayaa waxaan oranayaa waxaan soo gelinayaa si kale ayaan u gelayaa SSH space ayaad baxaysaa magaca userka ayaad ku qoraysaa kadibna ayaad oranaysaa kadibna IP addresska 192.168.0.21 passwordka ayuu ku warsanayaa passwordka ayaad gelinaysaa wala labada way waa loo galaa kii aan hore ugu soo aragnay xagga hore iyo kan hadda aan isticmaalano okay sana waa loo galaa Kali Linux iyo any Linux platform adoonaysid inaad tijaabisid clear ayaan ku qorayaa waxaan tusayaa very basic commands oo aad iyo aad muhiim u ah inaad ogaatid waxaad ogaanaysaa meesha aad joogtid halkay tahay horta so waxaad ku qoraysaa command-kan waa very important waxaad oranaysaa pwd wuxuu ku tusayaa positionka aad tahay so hadda waxaan joogaa home kadibna userka cilmi ayaan joogaa so saan hore ugu soo baranay basic Linux-kii magaca ugu horeeya oo username-ka halkanna waxa weeyaan waa computer name-ka command kale soo baranay waxa leen ls wuxuu ku tusayaa folderada aad haysatid ee ku diyaarka so waxaan haysanaa desktop document download music pictures public template iyo video haddaan command kale aan ku sii qoro ls-l wuxuuna tusayaa permissionka aan u haysano amba ogolaansho aan u haysano saad hore usoo barateen waxaan nidhi d-du waa directory ayay ka joogtaa r-tan waxay ka joogtaa baan nidhi read w-du waxay u taagan tahay write x-kuna wuxuu u taagan yahay execute okay
so userka qaybta u horeysa waxay ka turjumaysaa userka computerkan isticmaalaya amba devicekan isticmaalaya permissionkiisa. xabadda ku xigta halkan aad uga jeedin artna waxay u joogtaa waa read. so waxaan haysanaa directoryga read and write execute ayaan haysanaa. otherwise-ka amba groupka any other groups waxay samayn karaan can execute and read. groupkaad ka tirsan tahay laakiin dadka kale execute ayay samayn karaan. so sidaasi ayaa file permissionkiisa aad u fahmaysaa. halkan usernameka weeyi kana waa groupkaa ka tirsan tahay. saas ayuu noqonaya. command kale ayaan ina tusayaa oo ls -a wuxuu ku tusayaa hidden files filalka la qariyay. so hadda cache config .local .mozilla wixii laga horeysiiyo waa hidden files lama arki karo. so kuwani waa folders amba directories aad u taqaaniin. hadday caddaan tahayna waxa weeye waa files. okay, waxaan ku qornaa command kale oo la yidhaahdo clear. iskaga baxana ls haddaan nidhaahno -r capitala saan hore usoo baranay iyaduna waxay kutusaysaa si iskugu xigaan iyo faylalka oo dhan. okay, isagoo dheerna way kutusaysaa isagoo sidan u samaysanna wuu ku tusaya. xitaa wuxuu ku tusayaa faylalka kusii hoos jira faylalka. so desktop file ayaa kusii dhex jira la yidhaahdo amba folder la yidhaahdo CompTIIA. saasina waad u samaynaysaa. clear baan leenahay. another good command aad rabtid inaad taqaanid waa cd. loo baahay cd wuxuu ku geenaya kalo meeshaad rabtid ayaad ku tegaysaa. so waxaan dooranaa desktop waa change directory. desktopka ayaan joogaa hadda saad ujeedin desktop ayaan joognaa. kadibna waxaan leeyahay ls desktopka waxaa ku dhex jira file la yidhaahdo CompTIIA. waxaan leeyahay CompTIIA waad ujeedin filekii CompTIIA ayaan ku dhex jiraa. ls haddaan idhaahno CompTIIA file waxaa ku jira la yidhaahdo tijaabo. waxaan rabnaa inaan file kusii dhex samayno. so waxaan leenahay commandkii aan soo baranay waxaan isticmaalanaa cut. calaamadaas ayaad ku xijisiinaysaa. waxaan leenahay tijaabo number 2. kadibna waxaan leenahay enter. si markaa aad ugu noqotid meeshii saxdii waxaad taabanaysaa control iyo d ayaa isla taabanaysaa. haddaan daba idhaahdo ls itus waxaa ku dhex jira laba file ayaa meeshan ku jira. mid waxaa la yidhahda tijaabo 2 midna tijaabo la yidhahdaa. waxaan rabnaa fileka la yidhaahdo tijaabo 2 inaan dhex tagno. so fileka tijaabo 2 ayaan rabnaa inaan wax ku qorno. so commandkan waa very important. commandkan ayaad ku qoraysaa la yidhaahdo echo. waxaan leenahay assalaamu calaykum salaamu calaykum dhammaantiin akhyaarta ku xidhan ku xiran channelkeena Somali Technology. technology solution. kadibna waxaan ku xijisiinaynaa calaamadaasi ka weyn. kadibna waxaan doonaa fileka aan ku rabno inaan ku save gareyno. waxaan leenahay waa tijaabo laba 2.
okay filekii waan qornay wuxuu inoogu dhex jiraa meeshaas si aan markaa u hubino filekii inuu jiro waxaan leenahay cat markaan idhaahno calaamadan ayaan ka tuuranaa cat markaad tishaahdo waxaad odhanaysaa cat tijaaba number 2 inta baad siinaysaa waad ujeedaa informationkii aan qornay ayaa kuu soo baxaya very important hadhow markaad hacking ka sameynaysa amba file rabtid inaad ku dhex koobiyeysid meesha waa kamaanada la isticmaalayo okay so kaleer ayaan leeyahay waxaan jeclahay kamaan kale inaan tuso very important isaguna waxaan rabnaa inaan sameeyo file so waxaa kaloo muhiim ah inaad taqaanid sida file loo sameeyo halena waxaad sameysaa mkdr macnaa waa samee file loo bixiyo students amba folder loo bixiyo students filekaasi wuxuu inoo dhex yaalaa desktopka waad ujeediin file la idhaahdo student ayaa inoo dhex yaala haddaan markaa wax yar gadaal u baxno markaa fileka la idhaha CompTIIA waxaa ku dhex jira student tijaabo 2 tijaabo.txt kuwaas ayaa ku jira so let's say waxaan idhi filekaas ayaa ku jira haddii aanad jeclayn fileka waxaa kaloo muhiima filekan inaad delete garayn kartid so waxaan leeyahay ma rabo fileka la idhaahdo rm dr baad ka horeysiinaysaa kadibna fileka student ayaan tuuraya filekii wuu baxay haddaad tirahdo markaa i tus waad ujeedaa filekii inuu ka baxay meesha so markii hore halkan waa inoo muuqday so kamaanadaasi waa kamaano aad muhiima ood isticmaali doontiin insha allah markaad rabtiin inaad kusii socotiin barnaamijkiina kamaan kale oo waxaynu tusayaa aad iyo aad loogu baahan yahay haddii aad rabtid markaa inaad passwordka iska bedeshid haddii aad dib u noqotid waxaad leedahay hadda meeshani caadigii ayaan joognaa waxaan leeyahay clear haddii aad rabtid passwordka inaad bedeshid waxaad leedahay pass wd intan haddaad tiraahdo wuxuu ku odhanayaa passwordka soo geliya haddaad rabtid inaad bedeshid so waxaan leeyahay passwordkayga ayaan soo gelinayaa new passwordka soo geli buu ku odhanayaa mar labaad waadana passwordka gelinaysaa passwordku hadday isbedesho wuxuu ku odhanayaa passwordku way isbedeshay haddayna isbedelina wuxuu ku odhanaya password has not been changed so anigu passwordkayga ayaan mar labaad ku celinayaa والله passwordkii waad bedeshay waa very important inaad taqaanista passwordkii loo bedelo mar labaad ayaan rabaa haddana passwordkii inaan bedelo the current password ayaan kusoo gelayaa passwordka aan rabo inaan ku bedelo ayaan gelinaya halkan new password mar labaad ayaan gelinaya haddana والله password updated successfully si fiican bay passwordka isku bedeshay so waa inaad taqaanid default passwordka inaad iska bedeli taqaanid intaasi waxaa inoogu xiga inaad hubisid waxyaalahan soo socda so markaad rabtid inaad hubisid waxaad hubinaysaa IP address-ka first so iminka IP address ayaan waxaan u dirayaa 192
192.168.0.1 default gateway-ga waxaan leeyahay minus c waxaan leeyahay 2 times ayuu ping dirayaa kadibna waa istaagayaa so saad hadda u jeedin ping 192.168.0.1 wuxuu diray 1 iyo 2 jeer oo keliya ayuu diray saad u jeedin 2 jeer oo keliya ayuu diray so ping wuxuu isticmaalaa protocol leedah ICMP so qolada network-ka soo qaadatay way fahmayaan waxaa leedah internet control message protocol ayaa laga soo gaabsaday haddii markaa aanad isticmaalin systemkan oo tidhaahdid normal pingigu ma joogsanayo automatically ayuu u soconayaa saad uga jeedin halkan so pingigu soconayaa non stop adiga oo joojiya manually mooyaan si markaad u joojisid waxaa la isticmaalaa control in a keyboard iyo waxaa la isla taabsadaa c word c amba set midkaa doontid saas ayuu isku taagayaa laakiin best practice amba sida fiican ee wax loo practice gareeyo waxaa la idhaha -c kadibna 4 times haddaad rabti inaad dirtid 4 times ayuu kuu dirayaa so 4 jeer markuu diro 1 2 3 4 waa istaagayaa so sada halkan information ku jeedin waxaan dirnay 4 bucket transmitted ayaa inoo dirmay 4 received 0 bucket loss waxa inaga lumay ma jiro so that means wax walba waa successfully amba wax kasta waa okay waxaan kale oo nin tusayaa command kale oo very important as well oo lagu hubiyo IP address-kaaga haddii aad tidhaahdid kaali markaad joogto oranaysaa IP address ku tusayaa hore ayaan soo baranay kani waa local IP address amba waxa loo yaqaano localka IP address-ka IP address-ka aan isticmaalayo systemkan halka ayaad uga jeeda 192.168.0.21 way so waxaan leeyahay iga clear garee haddii markaa aad wireless isticmaalaysid waxaa hoosaa IW config halkan saad uga jeeda wuxuu ina leeyahay there is no local wireless wax loo wireless extension ma jiro so wax wireless on haysanaa haba yaraatee ma jiro sidaa darteed ma haysano wireless okay waxaan kaloo tijaabinaa command kale oo very important ah oo dhinaca network-a command-kan waxaa la idhaahdaa way command-kaygii ping waan soo baranay isaga command-kan ayaa tijaabinaysa la idhaahdo ARP address resolution protocol oo ku tusayaa device-yada aad isticmaalaysid MAC address-kooga so hadda MAC address-ka meeshaad uga jeedin waa 3C 2.22 that's a MAC address for the interface saas ayuu ku tusaya MAC address-ka device-yada so waa ina taqaanid MAC address-yada waa address resolution protocol wuxuu ku maap gareeyaa IP address-ka to MAC address ama MAC address to IP address very important inaad network-ka taqaanid qaybtaas waxaan kaloo tijaabin doonaa command kale oo la idhaahdo netstart wuxuu ku tusayaa boorarka furan ee systemkaaga very important haddaad aniga systemkayga u fiirsatiin boorarka systemkan Kali Linux ka furani waa SSH ayaa ka furan so boorku inuu furan yahay waxaa lagu gartaa wuxuu odhanayaa state establish
okay si taa ka fudud ayaan tusaya waxaan leeyahay clear waxaad oranaysaa net start -n amba net start a inta waxay ku tusaysaa wararka openka okay so Unix streaming wararka furan ayuu ku tusaya so haddaan sare u baxo halka waxaad ujeediin TCP 192.168.21 port 22 furan yahay oo SSH ah port 68 na wuu furan yahay oo DHCP okay staas ayay markaa boorarku u furan yihiin oo la rabaa inaad u taqaanid very good commands way net start -a and I clear kama sax waxaan kaloon ku tusayaa hadday cillad kaaga timaado systemka for example SSH hadday ku shaqayn weydo sidaad u eegi lahayd SSH hadday ku shaqayn weydo waxaad isticmaalaysaa sudo command-kan kadibna waxaad ku qoraysaa system ctl status SSH inta haddaad taabatid passwordka ayuu ku weydiinayaa so halkan muxuu ku tusayaa SSH calaamadda greenka open secure shell server active inay shaqaynayso halkaas ayuu kaa tusayaa iyo timeka wax walba saas ayaad u hubinaysaa saa meeshan uga baxdid waxaad control iyo d control iyo waxaad taabanaysaa z so saas ayaa iyadana SSH la iskaga hubiyaa saad halkan uga jeediin waxayna tusaysaa maanta oo ay bishu tahay 23 May 2021 CompTIIA Kali SSH accepting password from the systemkan IP addresska ayaa laga soo galay saas ayaa loo hubiyaa waad mahadsantihiin casharada kale la socda والسلام عليكم ورحمة الله